bilowga taxaneen cusub wuxuu ku bilaabanayaa boqor lagu magacaabay Jack. Boqorkii Jackana dhammaan ardaydiisa hoostiisa ay ku tababaranayeen. Boqorkii Jack intuu halkaas fadhibnin ayaa isku dayay inuu isaga dilo, laakiin boqorkii Jack waxa uu mid aad u xirfad badan wuxuuna bilaabay halkii uu saarna inuu ka tuuro ninkii. Mid ka mid ah ardaygiisii uu ku tababaranayay hoos ayaa bilaabay ninkii inuu halkaas ku takhaluso oo halkaas ku dilo. Wuxuuna boqorkii Jack ku yiri ardaygiisii howl fiican ayaad qabatay. Intaa kadibna waxaan aragnaa boqortooyo kale. Boqortooyadana waxa maamulayay gabdho. Waxaan halkaas ugu imaanay adeerkooda kaasoo faalilow ahaa. markii guriga uu yimid bas markii waxa halkaas imaanaysa atrishadii filimka taasoo lagu magacaabay waxayna bilowday inay soo cararto oo markaan u timaado adeerkeeda. waxaan markaan ku tiri adeer waan ku salaamay, waxaan filaa inaad maanta noo wadid akhbaar fiican, waxaan rabaa inaad ii fiiriso nasiibkayga. isagana wuxuu ku yiri gabadhayda nasiibkaada aad buu qurux badan yahay, haddii aan kuu fiirina waa mid cajiib ah. intuu gabadhii nasiibkeeda u akhrinay waxa markaan loo sheegay arrin kale, wuxuuna bilaabay inuu halkaas ka cararo oo ka tago gabadhii ahaydna way ka daba qaylisay. waxaan markaan ku tuuriya baalkii baqtarsib uu ku fiirinayay halkaasna way ka wada carareen. daawada inta aan muuqaalka si guud galin cashuurta iska bixi oo noolaa garay muuqaalka hadda dalkan ku cusub tahayna kamid noqo saaxiibadan ugu xiran. habeenkiina boqortooyadii ku noolayd gabadheenii nin ayaa isku day inuu soo galo gudaha ayuuna u soo galay boqortooyadii, wuxuuna bilaabay inuu markaan qof ka raadiyo halkan, laakiin ugu dambeyntii gabadheenii ayuu markaan toori ku qabtay. wuxuuna ku yiri waan ku dilayaa haddii aad ii sheegi wayso dahabka boqortooyadan halka uu yaallo. laakiin idana waxay ku tiri biliis ay dilin, aniga ma aqaano halka uu yaallo dahabka boqortooyadan. isagana wuxuu ku yiri waad ogtahay haddaad ii sheegi wayso ogow shakalaan waan ku dili doonaa, anigana sidoo kale waan ogahay dahab aad u fara badan inuu halkaan yaallo. idana waxay ku tiri aniga waxaasi oo dhan waxba kama ogi ee biliis ay dilin. isagana wuxuu ku yiri war ma maqashid miya, aniga waan kuu sheegay haddaad dahabkaas ii sheegi wayso waan ku dili doonaa. laakiin waxay ku tiri horta marka hore si caadi ma wada hadli karnaa. waxayna bilaabeen labadooduba inay markaan wada hadlaan oo ay wada sheekaystaan. waxayna markaan ku tiri run ahaantii aniga dahabka boqortooyada halka uu yaallo ma aqaano, laakiin waan isku dayi doonaa inaan dahabkaasi soo ogaado halka uu yaallo. isagana wuxuu ku yiri midaas waa qasab inaad soo ogaato, anigana midaas ayaan kaa sugayaa, ogow haddii aad dhiqayaanto waa ku dili doonaa. idan way ka soo dhaqaajisay waxayna ku tiri waa inaan raadiyaa dahabkaas halka uu yaallo. isagana waa uu ka daba yimid wuxuu ku yiri ogow haddii aan mar leexad kaa dareemo gurka ayaan kaa jari doonaa, wax uuna qoorta ka saariyaa midi. kadibna gabadheenii toorida ayaa iska qaaday. waxayna ku tiri adiga toori mooye wax kale ma taqaanid miya, si kale ilama hadli kartid, si caadi ayaad ila hadli kartaa, kaliya waa inaysan hadal ku noqonin toorida. aniga ayaa wax walba kuu sameynaya, mana laga yaabo inaan ku qiyaamo. laakiin waxaan ogaanaynaa ninkan inuu yahay boqorkii Jack ahaa kaasoo rab inuu dhaco dhammaan dahabka boqortooyada. markii gabadhii uu liishiba wax uu bilaabay inuu halkaasi ka dhaqaajiyo. intaa kadibna waxaan aragnaa gabadhii adeerkeeda kaasoo markaan u imaanaya haweeneydana waxay ahayd mid maamusha boqortooyo gaar ah. waxuuna adeerkii doonay inuu markaan iida garab weydiisto, waa uuna soo raacay. waxuuna bilaabay dhammaan wixii uu doonay inuu markaan u sheegto. maalintii xigtina waxaan markaan aragnaa ninkii Jack ahaa kaasoo markaan gacanta ku dhigin khiyaanoola ahaa. waxaana markaan ku yiri waan ogahay inaad adag i khiyaantay, laakiin haddii aad runtii ii sheegto waxaa laga yaabaa inaad iga badbaado. ninkiina wuxuu ku yiri hay aniga runta waa kuu sheegayaa, laakiin marka hore waa inaadan i dilin. laakiin boqorkii Jack midaasi muusan sugin, wuxuuna bilaabay inuu mididii ka taago. ninkiina wuxuu ku yiri waad ku qaldantahay inaad adag i disho, maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo badan oo aadan adiga ogeyn. waxaasna waxaa ka mid ah inaadan ogeyn hooyadaada inay dishay aabahaada, weliba si xun oo qaab daran ayay u dishay si ay markaan ku dhaxasho boqortooyada. boqorkii Jack markuu midaas maqlayn aad buu u xanaaqay, wuxuuna bilaabay inuu ninkii dhammaystiro oo halkaas ku dilo. intaa kadibna waxaan markaan aragnaa adeerkeenii oo weli la joogay haweeneydii. waxaan ogaanaynaa haweeneydan inay markaan xukunto boqortooyadii gabadheenii ahayd. dhammaan boqortooyadan iyada ayaa madax u ahayd, amar kasta oo boqortooyadana laga bixiyana iyada ayaa hogaamin jirtay, mana aysan jirin amar iyada ka sarreeyay. intaa kadibna waxaan aragnaa gabadheenii ahayd oo halmar soo baraarugtay maadaama ay waqti xadirkaas hurdaysay. riixuna way aragtay. waxaan markaan u imaanaysaa saaxiibteedana waxay bilowday in markaan biisiis oo ina ku tiraaho saaxiib waanad biyahan iyo cabtaa. waxaan markaan ku tiri aad baad u dhiisan tahay, rii nuuc ayaad aragtay. gabadhii saaxiibteedeedna waxay markaan arkaysa in katiinadeedii ay ka maqan tahay. waxaan markaan ogaanaynaa gabadhaan niyaha in katiinadeedii uu ka qaatay ninkii Jack ahaa, isagoo markaas katiinadeedii ka furtay. waxayna bilowday gabadheenii inay markaan saaxiibteedii boojeyso oo ina ku tiraaho saaxiib aniga gaajo zaad ayaa i haysa ee cunto ma ii keeni kartaa, orod cunto ii keen biliis. gabadhiina sidaas ay ku boojeysay iyadoo markaan aad ugu fikiraysay katiinadeedii. katiinadana waxaa iska leedahay hooyadeeda taasoo did u siisay. ugu dambeyntiina gabadheenii saaxiibteeda waxay markaan u keenaysaa cunto.
cuntadii ayay bilowday inay markaana cunto laakiin inta halkaas ku cunteynayaan ba waxa halkaas u imaanay gabdheeniyeed walaasheedana waxay aad madiida ka sarreysay waxaana bilowday gabdheeniyeed walaasheed inay markaan u sheekayso korin tiraaho walaasheedii aniga waxaan kuu soo helay nin aad u qurux badan kaasoo ka mid ah boqortooyadeena adigana waxaan rajeynaya inaadan didi doonin oo aad aqbasho laakiin wax walba waxaa ka weyn aqbalaadaada laakiin gabdheeniyeed ayaa waxay ku tiri walaasheed aniga xilligaan nin uma baahni maxaa yeelay waxaan rabaa inaan nolosheeda daryeelo marka hore adiga ayaa iga weyn marka hore waalid adiga guursataa midaasi waa qasab intaa kadibna ugu dambeyntii walaasheedii way kasoo tagtay idoo markaana timid qolkeedii markay timidba wax markaana dareemaysaa inuu joogo ninkii jaag ahaana markasta qolkeeda ayuu ugu soo horeeyaa waxuuna bilaab inuu markaana la hadlo oona markaan u yimaado wuxuuna ku yidhi aniga markasta hooskaaga ayaanahay waana kula socdaa ballanna waad iga qaaday ballantiina waan kaa sugayaa haddii aad ballantaasi oofin waysana waxaad ogaataa inaan adiga kaa taqalusi doono markay midaas maqashayb aad bay u naxday gacmaha iyo afka ku qabsatay laakiin isagiina wax uu bilaabay in gacmeedii uu afka ka dejiyo ku yiraaho maahan inaad afka qabsato ee waa inaad ii fulisaa ballanteedii aad iga qaaday ogow haddii aad ballantaasi fulin wayso wixii kugu dhaca aniga mas-uul kama yihi intaa kadibna ninkii jaaga wax u bilaabay gabdheeniyaha iyadoo diidayso inuu markaana qoorta qabto oona markaana qoorta ka mariyo kareen maadaama halkaasi uu si midi ugu saray gabdheeniyahaad intuu kareent u marinay iyadan way ku raaxaysanaysay ugu dambeyntiina gabdheeniyahaad ninkii jaaga waa uu ka tagay ninkii jaaga markuu ka tagayba waxa markaan u imaanaysa saaxiibteedina waxay bilowday inay markaan la sheekaysato laakiin gabdheeniyahaadna ma aysan ogoleen in saaxiibteeda ay u sheegto waxa jira wayna soo dhaqaadanaysaa gabdheeniyeed iyadoo markaas fikiraysa waxayna bilowday inay markaan aruuriso dhammaan wixii dahaba oo halkaani yaalay waxayna markaan ku gurbanaysaa dhammaan dahabkiina waxay bilowday inay qaado iyadoo markaas doonaysay inay u geyso ninkii jaag ahaa wayna markaan ka soo baxdo ballantii uu la galay waxayna bilowday inay markaan geesaha iska fiiriso iyadoo markaas gagaatamaysay gabadhaananiya iyada ayaaba tuugad kala ahayd ugu dambeyntiina bannaankay u soo baxday geed ay markaan soo kortay waxayna markaan doonaysay inay boqortooyadani ka baxdo si markaan ninkii jaaga ay markaan ugu geyso dahabkan geedkii ay markaan kasoo degtay iyadoo aad u faraxsan oon isdhaysi markaan waad baxsatay laakiin wax agteedii kasoo baxaya wiil ka tirsanaa boqortooyadeeda kuwa ugu sarreeya markay wiilkan aragtayna aad bay u naxday maadaama dhinaceeda uu taagnaa uuna hadlayay waxayna markaan u malaynaysaa inuu iyada la hadlaayo laakiin isaga wax uuba sheeganayay jacayl waa ayna fahmi weyse ninkaana wuxuu ka hadlaayo dhinaca kale ayay aaday waxayna markaan arkaysaa walaasheedii waxayna markaan ogaanaysaa in labadooda oo markaana ka dhexeeyo jacayl waxayna bilaabeen labadooduba inay markaan jacaylka isku sheegtaan iyagoo markaas geed labadiisa dhinac taagnaa iyadana dhexdooda ayay taagneed wayna dhegaysanaysay labadooduba waxayna markaan labadooduba isticmaalayeen erey aad u qurux badan laakiin ugu dambeyntii gabdheeniyeed waxaa markaana qabanaya wiilkii ayaana arkay wiilkiina markuu gabdheeniyeed arkay aad buu u naxay waxuuna ku yidhi ma adiga maxaad halkaani kasoo doontay isla markiiba gabdheeniyeed walaasheeda ayaa markaana aragtay waxayna ku tiri kaal sheekadan oo dhan ma dhegaysanaysay waxayna ku tiri ha sheekadiin oo dhan waa dhegaysanaya wayna ka dhaqaajisay intii ay sii socotay waxa markaan u yeeriyay wiilkii waxuuna ku yidhi xaggeed u socotaa waxayna ku tiri bannaanka ayaan rabaa waxaana rabaa inaan soo ducaysto laakiin wiilka ayaa wuxuu ku yidhi maya meesha ducada dhankaani kaama jirto ee gadaal ayay kaa jirtaa maxaa dhacay adigama wareertay gabdheeniyeedna xaalka ayaa jaq ku noqday waxayna markaana ku qasbanaatay inay markaan hadalkoodii qaadato wiilka ayaa markaana gacanta soo qabtay waa uuna soo waday labadii gabdhooda gacanta ayuu isku geliyay waxuuna ku yidhi walaashada waa inaad ka taxadirtaa intaa kadibna gabdheeniyeed waxaa markaan u imaanaya saaxiibkeedii jaag waxuuna bilaab inuu mar kale u sheekeeyo uuna markaan la qaato waqti aad u qurux badan markastana iyada ayuu u imaan jiray waxayna bilaabeen halkaas inay waqti aad u qurux badan ku wada qaataan labadooduba waxayna markaana ku tiri aniga waan kuu dadaalay waxaana isku day inaan dahabkaagii kuu keeno laakiin midaasi waa ku guul daraystay isagana wuxuu ku yidhi dhib ma lahan mar kale ayaa ka badan mar kale ayaad ii keeni doontaa intaa kadibna waxa markaana kulmaya gabdheeniyeed walaasheeda iyo wiilkii saaxiibkeeda ahaa waxaana markaan u keenaya cunto wiilkii saaxiibkeeda waxuuna ku yidhi cuntadaana aniga ayaa gacanta kusoo sameeyey waanaad cuntaa markii cuntada ay dhimsay waxay ku tiri waan ka xumahay sokorta ayaad zaad ugu badisay cuntadan isagana wuxuu ku yidhi cuntada miyaan ku badiyey dhib ma lahan waxayd markii ugu horreysay oo aan wax kariyo iyadana waxay ku tiri oo gacantaada miyaad ku karisay isagana wuxuu ku yidhi haa gacanteeda ayaan ku kariyey markii uu hadalkaas ku yidhiba waxay bilowday inay markaan cuntadii dhammaysato oyna cunto maadaama qofkii uu jeclad uu soo diyaariyey isla markiiba gabadheeniyeed waxaa markaan u imaanay ninkii jaag ahaa isagoo aan gabadhii la hadlinba wax uu bilaabay inuu habsiiyo iyadoo diidan markii ay habta kadib wax uu bilaabay inuu kor u qaado una xambaaro waxaana markaana ku yidhi adiga waad kasoo bixi waysay ballantii maxaa yeelay wixii aan kuu diray oo dhan waad kasoo bixi waysay xitaa waad awoodi waysay dahabkii inaad ii keento aniga markaana dahabkaas uma baahni ee adiga ayaa dahab iiga qiimo badan waxuuna bilaabay inuu markaana bageedii ku
ku saaxdo waxayna markaana u muuqataa sheekadii xatooyd inay markaana isku bedeshay jacayl kadibna waxay markaana ku tiri maluhuba aniga miyaad i jeceshahay isagana wuxuu ku yidhi kulli aniga midaasi ma sheegi karo laakiin midaasi waa rajayn doonaa intaa kadibna gabdheeniya saaxiibteeda ayaa markaan u timid waxaana bilowday inay markaan u rareexdo kuna tiraaho soo ma ogid adigii walaashaad inaad markaan safar tihiin safar ayaad ku tegi doontaan boqortooyo aadna booqan doontaan adigii walaashaada iyadii walaasheedina markaan faras ayay soo fuuleen wayna soo dhaqaajiyeen waxayna bilaabeen faraskii dhexdiisa inay markaan ku sheekaystaan kaynta ayayna dhex marayeen markii cabaar ay socdeenba ninkii dalawarka farasta waa u istaajiyey farasta waxuuna ku yidhi xooga ayaa nasan doonaa kadibna waa sii dhaqaajin doonaa gabdheennii ahaydna way soo degtay si ay markaan hawo u qaadato laakiin waxaa jiray niman tuugaha oo keynta ku sugnaa baangado ayayna wateen waxayna markaan raadinayeen cid ay dhacaan gabdheennii ahaydna waxay bilowday inay markaan iska wareegto iyadoo markaan laan moos ah wadato keynta dhexdeeda ayayna iska wareegaysay iyadoo markaas aanan garanayn meeshay u socoto nimankii tuugadahana way iska sheekaysanayeen iyagoo waqti xadarkaasi jaro iska ciyaarayay duurka ayna dhex fadhiyeen intay jaradii ciyaarayeenba waxaa halkaas u amaanaysa gabdheennii ahayd oo dabaasho ahayd waxaadda moodaa gabdha inay xoolo tahay waxayna ku tiri tuugadii maxaad halkaani ku ciyaaraysaan maxaadna halkaani ka haysaan tuugadiina markay gabadhan arkeen way la yaabeen waxayna ku tiri waanaadna keentaan aniga ayaa idiin geynaya meel waxaan idiin siinayaa wax allaala wixii aad rabtaan tuugadiina markay midaana maqleen aad bay ula yaabeen waxayna bilowday gabdheennii ahayd inay markaan tuugadii soo hor qabato iyadoo markaan iska dhigaysa atriisho aanan caadi ahayn oo bele ka dhacday gabadhaani nii ah xaliimooyinka waa midda ugu doqonsan xaliim yaal igu qaata midaasi waa kaftan oo keliya waxay markaan soo hor qabanaysaa nimankii waxay markaan ugu dambeyntii keenaysaa farasteedii nimankiina waxay bilaabeen inay markaan qararada fiiriyaan waxay markaan ogaanayaan in dadkan ay ka socdaan boqortooyo waxay markaan bilaabeen dalawarkii faraska inay markaan weerar ku qaadaan oo halkaas ay ku dilaan nimankiina waxay bilaabeen ugu dambeyntii inay markaan gabdhihi afduubtaan iyagoo markaan ka afduubtay keentii dhexdeeda maantana waxaan halkaan ku soo gabagabaynaynaa qaybtii koowaad ee taxanaheena maanta muuqaalkeen intaan ayuu ku egyahay intaan muuqaalkan mid ka xisaab badan kulmi doono sidaas iyo nabaadiino